السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك saaxiibayaal walaalayaal mar kale ku soo dhawaada muuqaal kale oo cusub. Muuqaalkan waxaan kaga hadlayaa hadduu Ilaahay yiraahdo xiriirka ka dhaxeeya soomka iyo caafimaadka. Insaan dhamaanteen wada ognahay soonka waxaan ugu waajibeeyay Allah subhanahu wa ta'ala in Allah kaliya soonka wuxuu ku waajibeeyay dadka muuminiinta gaalada lagu waajibeeyay waa tii Ilaahay aayadiisu ku yiri يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. marka soon kaliya waxa laga rabaa dadka muuminiinta ayaa laga rabaa marka waxa arkaysaa dad yar oo muumin ah hadan dhibsanayo soonka shaydaan u tusaayo inuu soonka yahay culays marka qaarkood ma soomaanba qaarna ayagoo sooman muxuu ay dhibsanayaan soonka marka walaal waxaad ogaanaysaa waajib ma jiro Ilaahay uu dul saaray ilaa anaga danteena ayaa ku jirto marka laga hadlaayo waajibku Ilaahay dul saaray mid waxa waaye Ilaahay wuxuu noo balan qaaday tawaabkaas uu nasiinayo haduu Ilaahayna gaarsiiyo maalinta qiyaamo midna waxa jirto adduunyo ayaan ka helnaa in hadda ramadaanka Ilaahay ayaa nagu waajib yeelay waa waajib Ilaahay uu dul saaray in Ilaahay asaana balan qaaday inuu qofkii soomo awaal marinayo waati Ilaahay oo yiri as-sawmu li wa ana ajzi bi soonka aniga iskale qofkii soomana aniga ayaa awaal marinayo taas waa awaal marinta weyneed oo Ilaahay noo balan qaaday insha Allah dhamaanteen aan wada rajeynayno Ilaahay naga aqbalo soonkeena Ilaahay naga bidigo kuwa Ilaahay awaal mariya waa tii weyneed marka aan rajeynayno dhamaanteen mid waxa jirto marka oo adduunyo intaan joogno aan ka faa'iideyno waana caafimaadka soonka marka waxa laga helaa caafimaad hadda anaga kaliya waxaan ognahay soonka inuu yahay cibaado waa sax cibaado uu yahay laakiin waxa uu si dheer caafimaad hadda adduunyada waxay maraysaa qaar markay isbitaalada tagaan inaan daawo loo soo qorin kaliya la dhaho oo intaas maalin raashin cun soon ay cibaadaan uma aaminsan gaalada kaliya waxay u qaateen caafimaad inuu yahay in hadda waxa la sheegaa ama ognahaba 2016 ninkii la siinayay shahaadada ugu sareysa adduunka Nobel Peace Prize-ka wuxuu ku qaatay Nobel Prize-ka wuxuu ku qaatay wuxuu soo ogaaday caafimaadkii soonka xiriirka dhexdiisa soo ogaaday saadaraad ayaa loo siiyay marka hadda xitaa gaalada waxay dhahayaan ama ay dadkooda u sheegayaan in wiigi ama isbuuci la soomo 2 maalin waxay dhahan 2 maalin waxa qasab ah in 2 maalin la soomo qofka duu caafimaad taam rabo waxay kale oo sheegayaan 24 saac 8 saac kamid ah waa in la soomaha ay dhahayaan marka waxaad ku soo gudbinayaa dhowr qodob kuwaasoo marka la xiriira caafimaadka iyo soonka waxa kamid ah marka soonka wuxuu yareynayaa difinta dabcan saan wada ognahay difinta haday kugu badato waxay keenaysaa cudur badan cudurkan loo yaqaan kolestaroolka dhaqaatiirtu waxay sheegaan inay keento difinta oo badatay difinta markay badato waxay galaysaa blood streamka meelaha ay marayaan ama meelaha uu marayo dhiigga ay galaysaa kadib dhiigga inuu socdo way adkaanaysaa marka waxa meesha imaanaya pressure iyo cadaadis marka cudurro kala duwan imaanaya anaga waxaan cunaa raashin kala duwan cunaa raashinkaas waxaan keenaa difin qaar jirka asaa isticmaala qaarna waa keediyaa marka hadii in badan la keediyo oo wax badan la keediyo meesha lagu keedinayo way si badan mar hadii si badan way soo bixi marka waxay soo galaysaa blood streamka markaas waxay keenaysaa problem marka laakiin hadaan dhowr saacadood ama sanadkii dhowr muxuu ahay maalin aan raashin cunin waxa dhacayso jirka shaqadu uu wadayaa wuxuu isticmaalayaa keedkii muxuu ay keedsanaa difinta keedsaneed ayuu isticmaalayaa difinta ayaa banaanka loo soo saaraya marka kadib taas ayaa shaqadii qabanayso difinta waxay qabanaysaa muxuu ahay waa la gubayaa sidoo kale waxa loo isticmaalayaa keed ahaan waxay keedinaysaa sokorta ay keedinaysaa saadaraad marka difinta waa la isticmaalayaa mid kugu keedsaneed marka waxa meesha kaaga harayo cudur walba keen lahaa difinta labo soonka wuxuu yareynayaa sokorta hadda anaga raashinkan cunno badna wuxuu u badan yahay glucose u badan yahay ama sokor u badan yahay marka sokortaasi hadii jirkeena ay ku badato dhibaato keenaysaa marka haddaan soonno inta keedsaneed jirkeena uu keediyay uu isticmaalayaa marka badna dhibka waxaa keenayo keedkaa keenayo baash hadii keedsanto ay badato markaasuu dhibka imaanaya marka la keediyo muddo kadib aanan raashin ama wax cunin jirkeeni asu uu shaqeynaya mar walba
marka wuxuu isticmaalayaa mid keydsan marka waxaa yaraana keydka ayaa yaraanaya marka meeshan waxaad ka helaysaa marka caafimaad oo dhammaystiran waxay kaloo sheegayaan dhakhaatiirta soonka inuu wax weyn u taraayo systemkan qaabilsan inuu dayactiro seliska ama unugyada unugyada jirkeeni dhammaan saan waad ognahay wuxuu ka samaysan yahay unugyo marka qaar ayaa dhinto qaar ayaa shaqadoodii gaba marka intaba waxaa lagu sameynayaa muxuu ahay dayactir ayaa lagu sameynayaa marka systemkaasna wuu caawinayaa wuxuu kaloo soonka wax u tarayaa maskaxda maskaxda jirkeeni howl ma jirto ka dhacdo ilaa waxaa mas-uulka maskaxda ayaa mas-uulka ah marka haddaan maanta raashin cunin waxaa nasanayo digestive systemka calooshi wax burburin lahayd way nasanaysaa wax mala burburinayo marka hooshi waxaa qabanayso maskaxda ayaa qabanayso marka maskaxda waxaa ka baaqanayso hooshii ay ka qaban lahayd caloosha saa daraadeed marka maskaxda waxay helaysaa fursad ay ku nasato ama fursad ama ay howlkal ku qabato taasoo howlkal ugu qabanayso systemyada kale waxay sheegaan dhakhaatiirta markay meesha ka nasato maskaxda waxay aadaysaa dhanka difaaca jirka taasna waa faa'iido kale wuxuu kaloo soonka faa'iido u yahay waxaa nasanayo systemkan muxuu ahay ama habdhiskan burburinta cuntada asaab nasanaayaba idan maalin buu shaqeynaya marka wuxuu u baahan yahay nastiino soonka waxaa kaloo la sheegaa inuu nagu saacido ama xubnaha jirkeena qaar kamid uu ka saacido inay soo saaraan sunta ku dhex jirta jirkeeni marka walaal soonka wuxuu leeyahay faa'iido aad u badan marka maanta hadaa iraado waa ka sheekeynayaa ama waa laga sheekeynayaa waqtiga waxa waaye noo masaamaxayo waqtigan ma jeclin ani aan dheereeyo oo waxaa aad u jeclay inaan soo koobo marka halkaasaan kusoo koobayaa insha allah muuqaalada kale waa kusoo dhamaystiri doonaa qeybaha dhiman marka halkaasaan kusoo gabagabeynayaa ramadaan mubaarak ilaah soonkeena hanaga aqbalo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu